برنابيا lagu ciyaari doona kulanka ugu weyn horyaalka Spain El Clasico iyadoo Madrid iyo Barcelona ay wada ciyaari doonaan wareegga tobnaad ee horyaalka La Liga. Kulankan ayaa mar walba ah mid lagu hardamo kaliya 3 dhibcood waxaana uu leeyahay taariikh dheer, sharaf iyo loolan ka dhex jira labada naadi ee ugu awoodda badan kubadda cagta Spain. taariikhda kulankan qarsoon ayaan fiirin doonaa. Labada kooxood ayaa ciyaar 261 jeer iska hor yimaadaan tartamada oo dhan. Madrid ayaa guuleystay 106 gool halka Barcelona adkaatay 105 gool. haddii maanta Barcelona adkaato way la sinaan doontaa guulaha taariikhda El Clasico kooxaha Madrid iyo Barcelona hal konton iyo 2 jeer ay barbar galeen. bas waxay ka dhigantay Madrid kaliya hal gool ka horeysa Barcelona marka loo eego kulamada taariikhiga ah. horyaalka La Liga gudihiisa marka laga hadlo labada kooxood waxay kulmeen 190 jeer. Madrid ayaa adkaatay 79 halka Barcelona adkaatay 76 halka barbara ay galeen 35. farqiga horyaalkana aad ay lagu dhayahay kooxda Madrid waxaana cad in farqiga heerka tartamada uu aad u yar yahay taa kordhinaysa xamaasadda kulanka. Madrid waxay leedahay 40 dhibcood iyadoo ku jirta boos koowaad miiska la sareynta. Barcelona waxay leedahay 22 dhibcood iyadoo fadhiska kaalinta labaad. guulay gaartay Madrid waxay ka dhigan tahay in hoggaanka ay ku noqon karto 5 dhibcood. Barcelona waxay u baahan yihiin guul si hoggaanka ula wareegaan. kulankan ay la filayo inuu noqdo mid degdeg ah, xeeladaysan, isla markaana ay ka soo muuqan doonaan xidigaha caalami wax walba cadeen u noqon doona sida garoonka uu hadla caawa 6 qadar 15 daqiiqo ayaa kulankan la ciyaari doonaa. Cesar Soto ayaana kulankan dhexdhexaadii ka ah. Bernabeu ayaa mar kale martigelin doona mid ka mid ah kulamada ugu soo jiidashada badan. labada kooxood waxaa jira ciyaartoy ka dhaawacan oo intooda badan garoomada qaarkood ku soo laabtay. Madrid waxay heshay Arnold, Dani Carvajal, Dean Hazard oo tababar ku soo laabtay. Ferland Mendy ayaa diyaar u ah ciyaarta. Alaba, Rudiger ayaa maqan. Dani Ceballos shaki ayaa ku jira. Courtois, Valverde, Militao, Hazard ciyaartooyda kale waa diyaar kooxda cadaadka. Barcelona waxaa ka dhaawacan Ter Stegen, Lewandowski, Gavi, Dani Olmo, Rafinha, Konde shaki ayaa ku jira. Ferran de Jong inuu soo laabtay ayaa la filayaa. Madrid waxay ku tiirsanaan doontaa xawaaraha Mbappe, hal-abuurka Jude Bellingham. Barcelona waxay rajeynaysaa Lamine Yamal iyo Pedri inay abuuraan fursado iyadoo weerarka kala hogaaminayaan Rashford iyo Varane. kulanka ma aha oo kaliya mid lagu dagaalamo dhibco balse sidoo kale sharaf, taariikh iyo saameyn tartanka horyaalka. natiijada kulanka waxay noqon kartaa Madrid xoojinta hoggaanka, Barcelona la wareegidda miiska la sareynta iyo sheekashada awood dheeraad ah. kulankan xiisihiisa ayaa ah mid aad loo wada sugayo saxaafadda caalamkan aad u qorayso. adeexan maxaa ku soo daalinaysaa?